rag la yaqaanay oo caan ahoo xagga militariga ku fiicnaa oo saraakiilaha iyo gaaska ururadaada watay oo ay ka mid ahaayeen kuwii hore ee berigii hore la tababaray cadaadle iyo joogi jiray raggii aad hore taliyaha ugu ahayda oo airportka Diridhaba iyo galay magaalada Diridhaba meelahooda dibna looma arag iyaga laftoodii meeshii waa lagu qabtay meeshii si ku dhacda garan maaye ma farsamo xumo xaggaa ka timid baa ahayd maya waxay noqotay ma adaa ee taalahaa maxaa dhacay kulli eedo waa la wada leeyahay anigu kuma dhahayo waxaan ahay eedka saliim ma ku dhahayo markii waxa dhanba ninkii dhalaan ahay jinniga dagaalkan iyo waxaan markii eedka saliim ma ay ceebka saliim ma ay fiiri markii la ciidamadii aan in yar dib u noqday markii la ciidamadii galeen hogaamadii lama socon ilaa meel bowdahan kusoo xarxareeqnay way la qabsan waayeen sidii sabraayiga loo sameeyo xaruntii dhexe iyo ciidamadii sii socday way isla qabsan waayeen nimanka way garan waayeen wuxuu siday u socoto waa xaruntii dhexe madaaficdii taangiyaalkii rasaastii saadkii wixii oo dhan waxaa ku dhacay confusion ayaa ku dhacay confusion baa la qaaday waay marka midaan lagu leeyahay dhinacaas confusionkaas guud oo jiray iyo iyadoon la qorshayn ayaa isu helay meeshii baan tagnay waxaa la reebay 12 August in hawsha la galo taakulayntii intaan taakulayntii na soo wixii noo soo diray 24 baa la gaaray waa ka socday habeen baa soo galnay roobna ilaahay waa nagu ibtileeyay oo maaragtay meteorologiyada ninkii habeen meteorologiyada ka hadlayay ayaa si fiican u sheegay situation meteorologica wuxuu soo baxay balaayo hagaag dhulku ilaa waa dhul wada jeex ah awal oo maaragtay godad ah oo laaga ku jira laagooyin iyo balaayo wax kasta baa noqotay waa galnay laba taangana waa naga rogmatay meelahaasay ku dhaceen marka dayuuradihii baa iskeenay waxaan ku heshiinay in dayuuradahana la ka celiyo oo ugu yaraan hawada Diridhabe ay laba dayuurad ku wareegto si joogto ah sidii goday aan ku sameeyno kale waxaa dayuuradaha bishofta ka soo kacaya bishofta waa salligooda weyn oo Nasareed ku yaala bishofta la yiraahdo dayuuradaha bishofta ka soo kacaya aakhirtu inay arkaan in dayuurada dul taagan yihiin dayuuradahaas dul taagani awood ahaan waa ka adagii waa ka weyn yihiin kuwa xamaxada wadato laakiin amxarada waxa wata ninka ugu yar waa gaashaanle markuu ugu yar 300 saacad soo duulay annaguna waxaan wadanaa xidiglayaal magaalada midkii content dog fighting kana afweena u diiday in la baro bal qoodha ay xarada fiir dog fight sida dayuuradaha la dagaalamo markii dayuuradahan la keenay ayaa la yiri loo diro aan u yeerano niman Pakistaaniyiin ama aan doolayaalka u dirno dog fighting-ka sida loo la dagaalamo dayuuradaha bara wuu diiday warreeyay Yusuf Deega jooga warreeyay ma waxaad rabtaa buu hawiyahan meesha is aruursaday doolayaalka ila hawiyo u badan anaguna ma fiirinba war hawiyahan meesha fatada dog fighting isoo barasay aniga meesha igu duqeeya warreeyay markaas uu yiri iga qabo baash سفير بان كان هذا ديدي حاضر كو هذا وسك دغيو ماشي ماشي وسك يزدي هذا بان بحري باشان مسؤوليتي تان ما قادايو دوك فايتن لما برايو وانا لا دغال غلينيا ايش من شقه هذا سيدي با ciladaas waa ku jirta aniga waan ogahay marka Diridhaba sidii wala laga soo saaray waxana loo keenay waxaan haysanay madaafiic ilaa 4 kilometer wixii soo gala ku filan waxay noo keeneen
hal bombaray laba bombaray weligood lahaa jireen hal nin Eritrea inta la soo fakaday intaana dagaalada ka hor oo Hargeysa noogu keenay ayaan Kismaayo halkaas ku burburtay halkaas taala al'aana waa taala raqdeedii mid baa hartay 5 kilomitir inta timid oo afar dawladood oo fighterana soo wadatay si loo daafaco ayay baabuur walba annaguna waxaan ku taagnaba ma hayno baabuur walba waa ku dhifatay dhash dirdhabeed ku garaacday ciidanka adaa watay suma dirdhab anaa wataa wataagana dhash hatta maxaad iska daawo on sili meeshana waxay noqotay meel aan dagaalka taangiyada ku fiicnayn ay soo baxdo wuxuu loo jeedo buuro iyo kan iyo kaas iyo qarar iyo xaas noqotay allana ciidankaas waa soo celiyo idinkoo markaa jiga iyo waxaan kale iyo waxaan dhaxoo dhan taaban nabad iyo dirdhabo hadda waxaa la rabay automatically maalinta la gelay in la galo goormuu soo galay ruushkii adiga ruush goorma kala goosteen markaa maalinta ma anaga dib soo aragnay ninkii admiraalki ka bacdiba waa iga shakiyeen way arkarteen ninkan aad iyo aad ay dhibsadeen waxaan arkay xataa warqado markii ka bacdi ay presskooda iyo waxooda qoreen oo maaragtay aniga aad iyo aad leeyahay nin inkar qaba ayaan been noo sheegay oo nagarab maray helayo iyagu afweyne eedayeen laakiin profession ahaan ay anigana eedaynayeen iyaga eedda lahaa laakiin iyaga galaydiino haddana idinka daayay iyaga galayna yiri goormay bilaabeen inay idinka hor yimaadaan waxay bilaabeen markii gobonadoonkii gaaray meeshiisii aan sheegayo kuu sheegay magaalooyinka ayay soo jeesteen oo mingista inta xagga tegay oo barasha loo soo hesho soo noqday ayay aakhirkii balaayaa dhacday markaas wala soo kor waar soo dhamaysu ku timi la ilaaha illa tii idin dirtaba idin laysay cid kale idin caawisan waad weydii ma jirto waar soo baakt iyo annaga noqoto Soomaali okay maxaa dhacay waan aniga garanaya inaan waar soo baakt aanan oo beer dhigi karin markii wixii halkaas marayaan ayaan anigu fikrad soo jeediyay fikraddu waxay ahayd war ciidamada aan in yar dib u soo celino niman 6 guuto gobonimo doonana aan gelino dirdhaba ilaa iyo hawaash burahaas aan gelino ha isu socon waayeen iyagu minimum laba sano halkaas la legdamayaan مع الروش كذا مع البلايا ذولا أنا قلنا إنتاس أنا أيضا كي أنا دبوا لسنو حدا وحيل كلا أدون ككر وحكي لي كرنا أهرات سنو عيدك على صور نقول عيدك ما لقى كل كما صور نقول وحال تشكيلة لا وانا كمال لي هذا يجنع سنة ما تقال جنع سنة تشكيلة سداس قال هالشيء ما هن أنا وحيدهم كسر نقولنا فرونتك هورا دبك بدن وهذانا اللوجستيكالي دب بدن ودوين كده حية ومسافته دير تاي أيوة أنا واحد صلاح حرسين أيوة تبصر نقولنا أنا سكسر نقولنا مسافته نوس صبلاهي أنا ما أعرف نوس سهل هذا إلا شحكة للدقي محمد سيد مركو قرتي وارسو باكت باش صوغ شيء وحو قاعدين إنه سون بعشان هين كريم أن هاي صوماليين كاين كريم marka wuxuu gartay fidnada dhan oo ka baqay waxay ahayd ciidankaas oo inta la soo jabiyo isaga dib ugu soo noqdo inqalaaba Soma intii dagaalka wadeen ruushkii waxay siiyay idin la waday wadi ka horiyay waa naga hor mal saraakiil buu ku ahaa ciidanka in badan oo hore aan wareystay waxa ii sheegay in ma garanaysaa dibindaabiyeyn ama sabataaj ciidanka laftiisu uu isku sameeyay ma sabataajka waxa wada oo adiga markii aad u baahateed amar bixisay Hargeysa la soo hadashay tiraha ii soo dira rasaastii noocaas ah wax kale lagu soo diray waa soo diri jiray oo inqilaab kale gudaha kooshay waxa weeye waxa jiray
nimankan abtayaalka aniga reer abtigay weeye ma ogta nimanku cumar maxamuud baa aniga cumar maxamuud baa dhinac ka ah cabdullaahi yuusuf wuxuu inqilaab oo diyaariyey xataa intaan la gelin oon dagaalka la aadin ayuu saraakiisha shirgu yiri inqilaab baan soo markaas yiraahdeen haddeer aan ku dhufan war haddeer yaana yeelin haddeer Soomaali waxay ku jeedaa in dhul la xoreeyo Soomaali ka maqan haddaanu haddeer dabamaryo iyo maaragtay dhabar jabin ku sameeyno waxaana loo qaadanayaa qaa'imiinta Soomaaliya ku jirta waana la laynayaa aan isku aan dhex galno dhex orodno hadana aan muraadka iyaga ka qorsano waxa weeye Hargeysa maaragtay markii koonfur la soo xiriyay xoogii waxa la isugu geeyay Hargeysa la keenay taliskiina Hargeysa la keenay oo Sawantar iyo Geele Hargeysa ay joogaan meesha saadka waxa joogay nin la yiraahdo Colonel Doonyaale Ibrahim Warfa oo specialist ku ah logisticada oo Leningrad uga soo baxay asaga iyo Xasan Salim ما يا حسن فارح متان حسن فراتو او رجي وراها رجي وراها هي من اللي شري محمد احمد عالم قول ومركي دمر سفير نوضي افر سنه كو سو قاتل لينغراد لوجيستيك يا ترانسبورت تين يا ترانسبورت اللي يرا waxay noqdeen madaliya door soo qaatay ninka la yiraahdo Doonyaale ninkaas Hargeysa la keenay markii hore saas u kala socotay باشو سوانتر وبدلي عرو كبدلي عر مركو هرنا وهو شغال وهو انت ايرغراف سواريدان ku shaqalaha waligiiba meel logistic iyo looga hadlayo ma eeman inqilaabkuna waday Sawantar iyo Geele waa ogaayeen wax ay ninkan wadaan laakiin kama qayb galin laakiin way ogaayeen lugooyada wada way ogaayeen raggi u horeeyay oo fahmayay noqdeen ma taqaan lixdii canshuur ku jiray oo la dilay waa nimankii u horeeyay oo fahmay oo yirooryada meesha waxba ka socda qarajiya Sawantar iyo Geele waa saxay ma garanaysa ma inta kale oo saraakiisha kale oo dhan waxay ahayn rag daacad oo hawsha wada oo mitid ah oo ujeedada siyaasadeed iyo la soo jabay aakhirkii ciidankiina waxa la isku soo celiyay marka waxa fiiri aniga wuxuu arkay Maxamed Siyaad inaan ciidanka badbaadadiisa ka shaqeynayo marka waa ila wadaya soo u fahmo waxa aan dareensanahay iyo waxa ciidanka aan ka rabo soo u fahmo hawsha waa hadalka oo ila wadaya ha taadan qaadanayna oo kulay Sawantar iyo markaan midii aan ku sheegayo gobonadoonkana aan galin ciidan waayo taadan qaadanayna Sawantar oo yar no ma ka soo noqonayno labadoodu way sogyiin ciidanka in la baabi'iyo iyo duuniya ayaa lagu tala galay maxaa saad wuxuu yiri ruush waxa iga daran ciidankan mingistu kana niman kana iga daran anigana wuxuu ii arkay mingistu kale ku soo baxay وده روش كانوا يلقي يسقون مثلا تبينا واحد اللي يدي كنا واحد اللي يدي مركي على أي حال محمد نور قمر مركي أنا لما أنير كنت قدروا مركي قرشي أنا يسوون ترى أنا سكوك لافناي سوون أولي ماشي أجوجن أنا لا يساسون شون أيو أنت يرو هذا فضوده هذا هو كسر قلب حمر على يوسعي لحم مالو مركان جوج حمر أي الله صوت بصدق ماشي درنا هالكاس ماشي عن كيمة مال وانا شلينا أنت بقول صارت هرجيسة لصاحب الرياء لجود هذه عيدمو كود هذه حاجة ضمن لك جدا هذه كلابيرك ماشي كلابيرك وبنانك هالكاس السودي أورتانك يلا أورور في إنفانتري وصادق وخلاص مركز صويع مركز صغير حمام بركي حسين أنا مقالة شيء أقول لك يا صغير عبد الله يوسف فرنت النجي اللي لا دري
meel filtuu la yiraahdo dhooban yahay oo wax dhaxa baan ka fogay doorow xabad weligiis qosh kama siin inqilaabkan oo diyaarinaya markaas aan yiri ciidanka halkaan dhooban oo filtuu dhooban hatta Allah ugu dhifo gali berri ha qabsadeen nagayle dabadeedna wadadaas si raaceen waasa iyo dhulkan la sheego shabane iyo صح ha galeen الصواب حق ده soo 50 kilomitir meel harooyinka waaweyn la yiraahdo oo duur ah harooyinka ha galeen duurkaas galeen 50 kilomitir oo tageen argi baasha la leeyahay adis midgusto waa soo celinaa ciidanka markaasuu yiri oo heede waa fax fikradu waa sax ma waxaad rabtaa niman maxamed siyaad ahayn in la yiraahdo guul wade dawow baaba maskaxda iga furbay markaa waxaan isiri Abdullahi soo shaka ka qaba markaa jala madaxweyne hadda bedel ninka meesha jooga ninka rabtid gee markaasuu yiri waarune waa isoo ka yimid waxaad bedel leedahay oo niyo ila cadawayga tahay saaxiibkeen ku moodayay ama askarta kugu dalbada waxna koofi casaalada oo meesha ku dhiga markaas jale hargeysa la qabsanaya hargeysa ayaa la qabsanaya markaas war hargeysa sheegaysa balcadna hal yimaado warna wala cadawayga tahay maalintaas wax dhan ba fahmay ba iyo hooga meesha uu ka wado hada maxaa yaala marka waxa leedahay ciidankii Soomaali lahayd ee adigu ragga madaxda u ahayd ee dagaal gelisay Itoobiya gelisay waxa jabiyay oo bawdada ka jabiyay madaxweynihii adigana ku diray iyagana diray ayaa jabiyay oo eeday isaga saaray asaas oo soo noqotay gudaha la isku soo noqday waxa bilaabmay dagaal sokeeye iyo inqilaab iyo isku burbur baa bilaabmay aakhirkii keenay 1999 in cid xukunta la waayo nin waliba aqalkii magaranaysa awowgii ku dhashay iyo gobolkii uu dib ugu noqdo waxa taa ka horeysay inqilaab la isku dayay Abdullahi Yuusuf dabeedna waxa la gubay gobolka la yiraahdo mudug ragga gubaya kamid ah haddana SNM baa samaysay ragga gubaya kamid ah taqaan dhago weyne iyo saraakiil baa waxa ku sheegay sarkaal ogow amar baa la farayaa inoo cadaynaya kuwaas gubay halkan burburkaasina uu sii xumiyay taa ya waxa ku xigtay SNM halkan ka samaysan waasa dabeedna waxay noqotay in ciidamadaadii lagu fasaxo dalkii waqooyiga la oran jiray ama Somaliland gaar ahaan intan dhexe ee burciyaha Hargeysa u dhaxaysa waasa in lagu fasaxo in askartu waxay doontaa ka samayso gaani iyo Morgan iyo sheekooyinkan waxaad ka haysaa soo madax umada hayna wali aad ma siyahayn madax maya markaas ka bacdi sidaan uga soo oo la iga soo celiyo ka soo tag sabanta hada direerteen anigu ciidanka shaqada dambe kuma yeelan waxaan boolkaasaan ku jiray waxyaabana ma garanaysaa wadankan waxa burburiyay waxa way Maxamed Siyaad saddex Maxamed Siyaad Maxamed Cali Samantar iyo Maxamed Faarax Aydiid saddexdaas burburiyay way Maxamed Siyaad wuxuu ahaa motorka waxa dhashiraya dumay Samantarna wuxuu ahaa dubihi si la soo baxay runta wax alla wuxuu yiraahdo uu yeelaya garanaysaa waad ogtahay 83 sark oo dad ah oo military ah oo jigjiga agteeda oo jigjiga leeyahay meeshan wala isweydiiyaan dhowr iyo way 83daas telegram baa laga soo diray Hargeysa frontiga waxa way jigjiga iyo erey ciidanka ku fadhiyay oo joogay baalkii generaalkii hadda dhimanayay oo ar frontiga joogo waxa la yiri ragga ugu fiican oo la dalacsiyo oo ugu dishay bilinka badan ugu geesisan oo ugu kana oo kuwa
صغر على سماتر باوري ما قال نينك صحيح تلغرام كاس واي مصلحان با صحيحي الا وفرونتي تلي قيبتي سواي ما على سماتر با صحيح ما جيلا صحيح اي دونت نو والله صحيحي والله دراي سديتن iyo saddex nin baa la soo qoray barqadii maray tahay la soo labisto saan way kan la soo labis meel banaan ah la soo keeno kara meeshan oo qabri bayax ereyada banaankaas ayaa la soo keenay laba ABC baa la soo qaatay mid waxa watay loo dhiibay cudweyn la dhahayo sidii loo sugayay in la dalacsiyo garaad iyo wixii la siiyo ayaa labada dhinac looga furay far waa banaan meel ay u cararaan male far dhulka la dhigay mid baa ka fakadaan maqlay oo isu ekaysiiyey waxaas maxaa loola jeedaa ciidanka moraalka laga dilo hala jahwareeriyo ha kala cararo maaragtay ciidan dambaba yaan meesha arrintu saasay ahayd maxamed siyaada soo faray isaguna saasuu samantar iyo u fulinayeen iyo geele iyo qashinkaas waxa la garan waayay dhowr iyo ilaa 5-6 qof oo wareystay waxa ka wareystay ilaa imika military hawl xagga military laga garan waayay xagga dadnimada laga garan waayay na way garan waxa way ciidanka baabi'intiisa ayaa looga jeeday midad warsanayso bahalka odagi xawaalkan jiray hebel waraabe waraabe ma jaac waraabe ma odagan oo guurtida cabdi waraabe adoo warsanaya uu leeyahay galaala ku jiray waxa ka dambeeyay idinka ma ahayn marka adigu ma ahan xageen ka ah amar baaban ku maqlay oday weeyo soo ma garanayo hada muxuu sheegay waxa fasiriyada adigu ciidan ma leeyahay adigu hada waxa la doqonta xanteeda waa ogtay xanteeda ma mooga wala iyadoo laga baqdan garanaya diridaba iyo xagaa leeyahay haddaad ag martaan oo aad wax samayso qalad samayso asaga ku tooginaya markaa ma ciidannimo adkaantaada ahayd mise naxariista rag kale oo lagu yaqaano ma jirto wax kasta iska tahayba waxa weeye horta meesha maxkamad baa socotay marka maxkamaddu wixii maaragtay oo dambiyo markay galaan askartu waa la soo dacweynaya maxkamadda la keenaya waxay xukunto ayaa la ii keenaya ninka sektorka meesha loo keenay wuxuu ka diiday iyo wuxuu ka yeelay waxyaalaha waxaan ku sheegay in konton ka badan ayaa la soo danunjaaray la soo dacweey 9 baan ogolaaday 9 5 waxay dileen gacan ku dhiglayaan askar kale ilaayeen oo 2 sarkaal ku jirto 2 sarkaal mijir iyo kabtan kabtanko waxa reer waqooyi cabdikuus baa la dhahay jankiisto ah mijirkuna wuxuu ahaa dadka soo koonfurka qarasaan cabdirasaaq qarasaan ayaa la dhahay waligeena u dhigo ninkan ka seexay waayo ninkaas group artillery oo bahalkan da sodanka ayuu meel xuma kadar caday leeyahay ku haysto kadar caday waa meel kadar caday ana 18 madfac haysta da sodona hadii amxaara iyo ruush kadar caday soo maraan aniga ma jirto wallahi ka tahay inay soo mari karin expert inta ya madfaciisa yaa dilay nin askari yaa dilay oo maaragtay muxuu ku dilayna nin kale askari oo meesha jooga xaaskiisii u yimid markaas la yiraahdo ninkaas aan rabaa hay tiri markaas yar ana aqaan xaq u talo oodka iyo waxa wada laba habeen iyo laba maalmood meel duur inta la tagay oodka ana daldalay kiwa meesha markay u tagtay stoort tirsana ay ku dhacday alif loo hay alif li wuxuu u tagay taliyay qarasaan saas ay ku dhacday saas ay ku dhacday hal yaro yir balkaas in kara Allah ku riday hadii wuxuu isleey waxyaalaha soo kala waxyaalaha la isku dilay soo socday markuu soo hortay qoriga uu taqabsaday wadnaha ku dhiftay
حسليه عيلك كاسك هلب كيس أنا عنوات هلب كيس ساساك لو قد لي صد كابتن كاسنا ميت بادلي marka saad ku laysay saasa سان كله أساس maxkamad markii soo barto ayaad adna diri jirtay أدلي شري أيان أوجلا شري شن وحي يعني شن تاس سجال باب كوري موقته صدق لو وحي كعررين هو كودي مدافع ذو عررين فليبة هاي وما واحد يهري سرقال هل حد لا وجري سراكيلو ولا سراكيلو ولا هل حد لا كشري أو جريرة أو كرودة هرونا ودي من هروي تلي هرونا وها مركزا باور اي بي سي هاي أركانه أو حارد له مالس أردية الصقي ما أركب باوركي فك أنت سويرو باوركي اي بي سي هو هريت لا تسوقاتي oo mid in adeerkiis ah oo biiteen noo hayay soo saartay baaburkii ayuu meeshii dambe harawo meel la yiraahdo iigu yimid markaasuu yiri horintii aniga ka labadeena asaa ka hartay warwaa maxaa waxa sheegaysaa intaas oo soo waxa ka daba yimid markii ordaya waxa ka daba yimid ninkii taliyaha ururka ahaa soo baxsaday ماشي هورنتي يا لوجا تجي ننسبة تورا أو ريروغويا أيا ماشي هورنتي قبصة يو نيكي هالكي حدك تسكو كينا واقارتين دلاني أي كينا حدك بسيط كينا حدك تانسي حتى الملام كو أركا سجو كب مرنا كبتنا سجو أنا مرنا سجو مشير على أركا صدو وكاسا واحد نقول له محمد نور قلالو بدنا بساس وأنا بساسي سونو بساسي ولا بس الضرر ciidankaagii aada madaxda u ahayd eed bilowday in la dagaal geliso ee aada barna jabhadda ka dhigtay barna inkastoo lagaa sarreeyey inkastoo lagaa sarreeyey oo madaxweyne iyo dee wasiir iyo jaran iyo cid kaa sarreysa ay jirtay iyagaa sabab u noqday in la burburiyo etoobiyana waa la burburiyey somaliland intan iminka ka hadhayna waa la burburiyey xamar iyo soomaaliyana waa la burburiyey cidlaa la isugu soo baxay jabhadaa samaysmay dabcan jabhadu wax kale may noqon askartii oo kala baxday bay noqotay markaad dhinaca ka eegto reerana waa loo rugmaday oo iyadana waa loo waxeeyey iminka waxay taagan tahay 1991 wixii ka dambeeyey somaliland gooniisu taag bay ku dhawaaqday xamarna meel laguma taagna qoladan waxay dhahaan waxaa lagu yidhaha waad goosateen iyaguna waxay dhahaan waa laga goostay oo qolo manifesto la yidhaahba intay dowladii iska samaysteen iyadoo waxba lana weydiin dabeedna waa noo fududeeyey meel aan doonayay ruumaygu eriyay bay noqotay bal hadda burburkaa dambe iyo siyaasadihii ka dambeeyey iyo cidda adiga ku dhaaduna waxaad ka mid noqotay kuwii dagaalkii sukeeya dambena wax ka galayoo janaal caydiid oo haystay USC oo raggii maxamed siyaad bare la soo dagaalamay ahaayoo xamar soo galay qoladii ka hor timid ee adna la dagaalantay baad ka mid ahay waxaa laguu tiriyaa oo waxaa laguu tiriyaa inaad raggii isagana sababay ka mid ahay ka waran sheekada horta waxaa la yiri haddii lagu sheegana isu shareer haddii lagu shareerana isu sheeg anigu dadka faana kuma jiro waxaasaan sameey laakiin waa dhegeysta wax badan oo beenoo layga sheegayo aniga waxaan ku leeyahay maxamed siyaad soomaaliya anaa ka xoreeyey ama ninkii rabaana ha ku farxo ninkii rabaana ha ka naxo ninkii rabaa ha beeniyo maxamed siyaad waxaa riday uprising ka dhacay dadweynaha magaalada muqdisho walaa SNM baan kicin walaa USA aan kicin walaa SBM iyo waxaas la sheegaya kicin maba iman jahooyinka markaas laga hadlayo isaguna wuxuu rabay inuu inta marka hore ku leefo magaaladan iyo waxaa jooga oo kuwana ka hortago ciidankaas uprising ka sameeyay anaa hogaamiye u ahaa waa qabiil u ahaa
warab gaal xagga gal war waaslo xagga gal war habar gidir war Salemaal xagga gal war Cayro xagga gal war Sacad xagga gal aniga waa ninkii dhahay la wax kale ma hayna aniga wax kale ma maalinta ka saaraynay ka saar 18 gobol oo jiray gacanta ku hayay Maxamed Siyaad si xoog loo u haystay waliba marka laga rabo magaalada Berbera oo maalin ka hor dhib weyn ay ka laga qabtay hargeysa mu haysanay hargeysa ma waa haystay la haysan laakiin magaalo ma hayn ma jirin laakiin waxa haystay magaciisa iyo goobtii uu haystay oo waliba si xoog loo haystay ciidan xoog la halka joogay madaxweyne Daawud la dhahay ayaa madax ka ah hargey waxaana kor madaxda ka ah nin Cabdi Casiis la yiraahdo Mariixaan Cabdi Saacib nin soo gaar fiican oo ahaa magaranaysa ilaa ay xad laakiin haddana waxa uu ka tambadiyay waqtiga iyo balaayada iyo munaafiqnimadii socotay ayaa ka tambadaysa marka galabtan meesha ka erinay galab maqribkii ayaan ciidanka amrisim reeraad u sheegtay reero way waa reero oo ciidankii hadana ah adigu waa isku dhex jiraan way waa isku dhex jiraan saraakiil badan ku dhex jirta askar kale la askartii waa tii kala firdhiyo la balaayo lagu sameeyay galabtaas saan ku sheegayo Maxamed Siyaad diyaar u ah halkaas knock out ayu villa Soomaaliya way irinay hadda inta ka dambeysana wuxuu ahaa nin oo wareegayo meelaha warwareegayo xaafadaha iska jooga xaafadaha joog jooga